taliyaha ciidamada militariga Somaliland Nuux Ismaaciil Taani ayaa saaka soo gaaray degmada Tukaraq ee gobolka Sool oo ay ku sugan yihiin ama ay deegaansadeen cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Somaliland kol hore. Tukaraq oo ah degmada u weyn ee dhacda bariga gobolka Sool waxay dhextaal u tahay ama xiriirisa dhammaan deegaanada dhaca bariga gobolka waana halka ay fadhiisimada ugu weyn ku leeyihiin ciidamadu. Sareeye guuto Nuux Ismaaciil Taani ayaa ugu horeyn salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida taliyaha oo ay hareero socdaan qaar ka mid ah saraakiisha aaga bari ayaa sida uu warbaahinta u sheegay waxa uu daaranaa socdaalkiisu u kuurgalka xaaladda ciidamada maadaama uu halkan socdaal ku yimi iyadoo ay jirto xaalad dagaal iyo mid deganba. Taliyaha ayaa sidoo kale kulan la qaatay ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada waxaana uu bilad geesinimo oo ay mutaysteen siiyay saraakiil xigeenno taliyayaasha guutooyinka iyo aliflayaal oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ugu talagalay ciidamada aagan ku sugan. Sareeye guuto Nuux Ismaaciil Taani ayaa ka sheekeeyay qiimaha ay leeyihiin biladaha la guddoonsiiyay ciidamada waxaana hambalyo u diray dhammaan ciidamadii halkan ku gudoomay bilada geesinimo. Tukaraq ay degan yihiin ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland kulli waxaan halkan u imid in soo kontrolo ciidamada waana control caadi ah aad bay ciidamada u wanaagsan yihiin moral ahaan aad bay wanaagsan yihiin hawl ahaan aad bay wanaagsan yihiin waa ciidan hawshooda gutay qaranku uu xil saaray si fiican u gutay waxa jiid hore la siinayay waa rag way wada wanaagsan yihiin laakiin ragii ay soo xuleen guud kastaaba halkan ku siiyay waana arrin muhiim ah oo qaranku u gartay siyaasada Somaliland waana hambalyeynaya intii halkan ku guuleysatay NCA taliyayaasha yihiin baanduulayaasha hadda yihiin iyo ciidamada askarta hadda yihiinba waan ku hambalyeynaya waana biladuna wax qiimo leh weyn wax yar ma aha. Cabdi Fataax Maxamed Cabdi telefishinka Sab la saanood.